anoo qayd maraykaana qaba maraba waacayna iyo haatan madaxayga oo meela ka caddaaday intaasaan mareerta u sitoon daba maluugnaaye wax dhan baan mataanaha ka shubay tii macaan badanee wax dhan baan wadaan uga marmaray eegal maax kulule wax dhan baan habeenkoo mugdiya mayracoo rogay wax dhan baan ku miray toomihii mulufka weynaaye wax dhan baan magaalo u huray oon meeriyo dhaqaye wax dhan baan haween uga maqnaa mehersigoodiiye wax dhan baan maqaarada u siday igarra muuq dheere wax dhan baan u maray baarqab tii maydabta ah wax dhan baan islaan soo martiyey gaawuhuu muraye wax dhan baan masaar qaatayoon mooraduu dhigaye madow iyo caddaan iyo guduud midabyadii geera macnihiisa oo idin sidaan anigu moodaayo kolay maxamed iyo raaga tahay odayadii mayday waa muran nin kale oo iyidhi kaaga muunsanaya cadka goonti nimankii i baray yaanan soo gocanne garwaaqsiga ammaan yaan ilmadu gaadada i qoyne cibrigiin ma gaabtee hashii gabay hadlaysiiyo daraawiishta goomani hadday guriga soo gaadho garaxeeda caanood hadduu gaari kari waayo galowdaan u taabanahayaa gu'iya jiiraale cimrigiin ma gaabtee hashii gabay hadlaysiiyo dabatadaba wou gabawartaan garawadeennii gawaamahaba waa kaga tagtaan dhogordardhaaleeye cimrigiin ma gaabtee hashii gabay hadlaysiiyo guuraha habeenkan sidii galow u yeeraaye galiilyadana waa kaga baashaa sida gal roobaade cimrigiin ma gaabtee hashii daarad ka lahayn ragga nin waliba wuxuu sugayaa inta saamiga lagu dhufto in qaybta isaga ku soo aada uu inta kale ka aqoonsado dabadeedna uu halkuu doono ula dhaqaaqo hase ahaatee intaan hawshaa la gudagelin ayaa horta waxaa la meel marin jiray xeer maantaas oo kale ay soomaalidu ku dhaqmi jirtay mar walba oo geela xabaadha ah qaybsigiisa la isu soo hor fadhiisto xeer aan la iska indhatiri jirin waa xeer ku saabsan dhowr nin oo ay u badan tahay colka meesha maraaya inay ku jiraan bulshaduna ay si gaara u tixgelin jirtay raggaas ayaa midkood walba waxaa lagu gulnayn jiray tulud dheeraada taasoo aan lagu tirin jirin qof ahaan kol dhow saamiga uu geela kale ka qaadan doono waxaa raggaa ugu mudan loona horraysiiyaa ammaanduulaha waxaa loogu yeeri jiray intuu geela dhex galo inuu ka soo qabsado hashii ama qaalintii uu la dhaco waxaa xigi jirtay hal indhood tulud lagu magacaabo oo la siin jiray geelaa hadda la qaybsanayo ninkii soo arkay ee inuu degan yahay ragga u soo sheegay waxaa xigi jiray laba halaadoo la kala siin jiray ninkii colka soo saaday ee inta xoolihiisa u qalay hilbaha kumbiska ah qalqalaha uga soo buuxiyey iyo intii